Hooska dabaaldega 18 May ayaa maanta si ballaaran looga xusay degmada Togwa Jaale waxaana halkaasi soo buuxdhaafiyay bulshada qaybaheega kala duwan oo ku labisan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa qayb ka ahaa shirkadaha gaadiidleyda Himilo iyo shirkadaha muruqmaal ee Iftin shaqaale weynaha dawladda hoose iyo hoteelada cuntooyinka sameeya kale oo iyaduna halkaasi wacdara ku soo bandhigtay shirkadda Bari iyo Galbeed kadib waxaa la isugu soo biyay shubtay garoonka weyn ee Siranya Stadium waxaana halkaasi kala hadlay maamulka degmada Togwa Jaale oo weheliyay barsaabka xigeenka gobolka Gabiley iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Soomaaliland guul maanta waa maalin taariikhiya dhammaanteen waxaynu muujinaynaa qarannimadeena iyo mabda'a Soomaaliland siduu ugu weeyahay difaaca iyo qarannimada waddanka iyo ilaalitaanka sugitaanka xuduudaha iyo amniga gudaha kuwaas oo habeen iyo maalinba ku shaqaynaya xaalad adag oo nafhura hadday tahay ciidanka militariga ciidanka booliska ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka asluubta ciidanka debdemiska shacab weynaha uga jaale maanta ka soo qayb galay xafladda qaaliga iyo 30 sano sanad guurada maanta waxa talinaya annaka oo ahay dadkii xilliga dhashay ee ka soo dhex baxay dambaski iyo holacii dhacay ma jirtaan leenahay dib u noqosho ma jirta dib u noqosho maxayna kale noogu dhagan yahay waxay u barteen walaalnimadii hore ee dhala'aanta aynu ku soconnay waana weyneeno madaxweynaheenni waxaan leenahay xisbiyada qarankana sidhigii guuldarrada qoorta surateene guuldarradii way heli doontaan hadduu aan la yidhaahdo waa doorashada iyo codka koobiyo guuradii ka soo wareegtay halninkii aynu ku dhawaaqnay qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ayaynu maanta u taaganahay maanta waxaynu ku hirdamanaa geeska Afrika iyo dhammaan caalamkaba ay gaadhay horumarka jamhuuriyadda Somaliland taasi oo ah dimuqraadiyadda horumarka isku tashiga iyo dhammaan waxyaabaha adeegyada bulshada ay leeyihiin ee dimuqraadiyadda lagu calaamadiyo inuu waddankaas yahay waddan isku filan oo dimuqraadiya taasi oo aynu leenahay calan aynu gaar u leenahay ciidamo ay gaar u leenahay xuduudo gaar aynu u leenahay iyo lacag aynu isticmaalno oo aynu gaar u leenahay taasi waxay caddaynaysaa aynu buuxinay shuruudaha qaranku uu leeyahay maanta barriin weyn oo caalamka albaabadiisa furtay noqonaysa ayaa leehay walaalayaal noolaadaan idilaahay noolaada waxaynu muujinay in guud ahaanaynu Somaliland iyo haddaynu gaar ahaan degmada Wajaale nahayba barriin caalami ah oo adduunyada albaabada inoo furaysa ictiraafkeennii albaabka furaysa taasaan muujinay waalid noolaada halkankii xildhibaanadii waxaan u sheegayaa kii halkankaasi hibay sariirka u galay wax yar baa ka sii nool wax yar baa ka sii nool waddanka loo xoreeyey waa idinka inay dayal idinku dhaafto idinka maqmay oo aad wixii aydan tacabkii waalidiintii idaa khasaarinin 18 May waxay inoogu qotontaa waa curashadii qarankeenna jamhuuriyadda Soomaaliland maanta qarankeennu wuu qaangaaray albaabada aqoonsiga ayaynu garaacayn dawlada aan weligoodina hadal qaadi jirin ayaa maanta ina hadal qaaday oo waddanka Sacuudigu ka mid yahay oo aqoonsanaya waxa weeyaan baasaboorkeena dawlad furanaya waxa weeyaan qarankeennu maanta halkaas u maraya Soomaalida aan raadinay odayaashaas ay raadinayeen may ahayn Muqdisho iyo Hargeysa oo midoobo kaliya may ahayn ee waxay ahayd shanta Soomaaliyeed bay raadinayeen Soomaaliyeed walba gaar u joogsatay Somaliland waxa leenahay xaq bay u leedahay inay gaar u joogsato ana soo xili kartaan hore u socotaa maalinta ay dib u soo noqotay xurnimadii lumay waa maalintan qalbigeenna ku suntan taariikhdana noo gashay waa maalintan soo saaray way haddaanu nahay dhalinyaro inaanu horumarka ka shaqeyno oo wixii waxaan iga codsan lahaa in la soo celiyo dhaqankii iyo hidihii ay haweenku markay imiga diidayaan hablaha ay magaalooyinka ka qaadaan jiingado aan soo jeedin lahay jiingadaha la joojiyo dhaqankii hore aynu lahayn sideedii loogu soo noqdo hadday Somaliland ka hadda maxay tahay Somaliland waxa weeye Somaliland ha noolaato horaha u socotaan badaween ha jabo maanta waa wada garanaynaa waa 18 May waa maalintii xornimada Somaliland waa maalintan calankeenii la soo noqonay koobayahay dad badan bayna sugaya waan ka dheregsanahay maanta iyo 30 sanadood baan lahayn waxaanay siday noo gashay xamar siday noo maanta ma doonin sidayna noo gashay waxaan u baahannahay inagu teenaan maanta u baahannahay shaqadeennaan u baahannahay qof kasta magac iyo maamuuska Allahu akbar intii qarannimo waxba ku sii fogaan walaalay maalintii qarannimada Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato